Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to back selection. Halkani waa VIP cajiib. Asxaabteena aan jecelnahay kusoo dhawaada. Maanta waxaan wadaa qiso jacayl oo dhab ah. Waana qisadii qarniga qaadatay ee loo yaqaano qisadii Avery iyo Juliet oo ahayd qisada ugu xiisaha badneed isla markaasina laga sameeyay filimka caanka ee loo yaqaano Die Story. taxanaha ahaa in badan oo nigamada inay daawataan filaya balse qisada dhabta waxay ahayd in gabadha loo yaqaano Juliet oo isla markaasina iyo Avery ahaayeen lamaana yaryar oo isla markaasi si aad ah xiligoodii iskuulka iyo qaangaarnimadoodii waqti badan usoo wada qaatay aadna isku jeclaa waxayna ahaayeen lamaana mar waliba aad u weyn sheekadoodii buugaagtii laga qoray ee noqdeen buugaag hirgalay isla markaasina noqotay qisadii ugu macaaneed taxanahoodiina wuxuu noqday taxanihii ugu badnaa ee lacag laga sameeyo dhinaca markay noqoto sheekooyinka ama qisooyinka dadka ka dhexdhaca ee dramaha ama love storyga loo yaqaano waa tahay maanta waxaan soo qaadanaynaa halkii ay isbarashadooda ka bilaabatay waxayna ahaayeen labaano aad iyo aad isku jecel waxayna isku barteen iskuulka isla markaasina waxay ahaayeen dad isgarab taagan waa tahay wuxuu ahaa wiil agoon iyo rajay ah isla markaasina Avery oo mar waliba waxa ay isgarabsan jireen oo ay isla socon jireen oo wax walba u ahayd gabadha loo yaqaano Juliet balse mar waliba ay Juliet qalad ka gasho ama dhalinyaro kale ay ku buriso ama xiriiro kale ay ku dul sameyso ugu tagi jireen wuxuuna dhihi jiray mar waliba waxaan ahay garabkaaga saxda ah isla markaasina kaaga ma tagaayo kuwan kale ee adiga aad noqoto balse wax walba waxa ay leeyihiin meel ay ka bilowdaan iyo meel ay ku dhamaadaan sababtoo ah waxaa jira waxyaabo aad isleedahay qofka kaaga ma tagi karo oo hadduu kugu arko uu kaaga tagi karo waa qisada waxyaalaha xiisaha u yeelay isla markaasina ka dhexdhaca inta badan marka ay dhameysteen heerkoodii college iyo jaamacadeed waxay bilaabeen shaqo iyo inay nolol sameystaan magaalada loo yaqaano New York ayuu shaqo ka helay asagoo halkaasi shaqo u aaday balse marnaba ma isdhehaynin gabadhii intaas aad isku soo tiiri tacabeesheen ayaa qof kale gacanta u galaysa asagii oo halkaas ku maqan muddo 3 bari ah ayadana ay isleedahay ma uu soo laabanayo inta laga gaarayo maalmaha isbuuca sida Sabtida iyo Axadda ayaa waxaa dhacday inuu diyaarad soo ingeerto isla markaasina si degdeg ah oo ku yimaado guriga waxaana dhacday asoon ka filaynin Mr. Brown nin la yiraahdo oo saaxiibkiisii ahaa ugu dhowaa asxaabtiisa isla markaasina aad iyo aad nin uu u jeclaa ahaa ayuu wuxuu ugu yimid guriga labadoodii oo wada jooga balse marka uu yimid gurigii si tartiib ah muu soo garaacin ee waa uu iska soo furay guriga ayuu soo galay kadibna wuxuu u yimid labadoodii waqti wada qaadanaya wuu arkay wuu dul istaagay ama kaag ayayna ku noqotay markay ama kaag ku noqotay kadibna waa uu soo baxay tartiib markuu soo baxay sharqantii albaabka uu xirayay ayaa waxaa arkay gabadha loo yaqaano Juliet balse waa ay ka soo dababaxday balse waxaan halkan ka baranaynaa luqadda jirka qofka bini'aadanka waxaa jirta mar uu qofka asagoo ilmeynaya ama indhihiisa ay ilma ka socoto oo isla mar ahaantaasina ilinta ay ka qubanayso balse hadalka afka uu ka leeyahay ayna marnaba waxba ku oranayn balse waxaan maanta isla arkaynaa jacaylka iyo xiriirada la sameeyo ee dhabta ah ma yihiin kuwa sidan u xanuun badan mise hadday u xanuun badan yihiin ay markaasi go'aanada qofka kale dhaawacaya ama bedelaya ma yihiin kuwa laga ilaalin karo oo la sameyn karo ila arka Avery, please just hear me out. Listen to me. I'm sorry that I handled it the way that I did. Don't. I'm sorry. Just don't. If you apologize, I'm gonna feel like a jerk for not forgiving you. And then if I do forgive you, you're just gonna break my heart all over again, and I can't handle that. I won't. I promise you. Don't get it, do you? Either way, I lose. I can't love you, and I can't hate you because it's ruining my life. I need to nothing you. I need to feel nothing for you. I need to not think about you. I need to not care about you at all. But I don't know how to do that.
You know, you once told me that I had the power to destroy you. Remember that? It was you. It was always you, Juliet. You're the one that destroys people. I wish I'd never met you. aad ayay u xanuun badan tahay markaad aragtid qofkaad noloshaada dhan aad ku soo qasaarinaysay oo intaasoo waqti aad soo gelinaysay oo misna aad adiga lafta ahaantaada haddana asoo ku raalli garaynaya oo inuu ku raalli gareeyo rabaa misna haddana uu ku tiraahdo raalligarayntaad raalligelinayso waxay ii suurtagelinaysaa inaad mar kaleeto qalbigayga dhaawacdo mana aha midaan ka aqbalayo weliba soo ilmihiisa ama indhihiisa ilmo ay ka qoobanayso balse dardaarankii dhabta ahaa iyo midkii runta ahaaba wuu u sheegay. wuxuu dhihi jiray mar waliba waxaad oran jirtay ama aad dhihi jirtay uu yiri waxaad haysataa awood aad igu baabi'iso balse maanta qofka i baabi'iyay ee dhabta ahi waa adiga laftirkaaga. waa tahay qisadan waxay noqotay qiso hergashay. dareenka ama luqadda jirka ah wuxuu sheegayaa in lamaanaha ama qofka lamaanaha ku ah marmarka qaar wuxuu afka uu ka dhaxayo insa uurka jirin. waxaad aragteen in indhaha isa ay ilmi ka qubanaysay ayadiina ay hadli weyso afkii u juqda gabay ee indhaha taagaysay. taasi waxay cadaynaysaa ama cadayn u tahay in marnaba lamaanaha kaleeto wuxuu afka ka dhaxayo uu midna qalbiga uusan ka aaminaynin. haddaad si fiican u fiiriso marnaba ma aaminsana hadalka uu asaga dhaxayo inuu uga tagayo balse filinka waxay noqonaysaa inay kala tagaan. aakhirka filinka way kulmi doonaan. asaga wuxuu noqon doonaa mid kooma gala oo dhaawacma oo weliba dhibaato badan mara balse qofna muu aamini doono oo noloshiisii dhan halkaas ayuu ku baabi'inayaan. balse waxay kulmi doonaan muddo 15 sano kadib ah asaga oo nolosha ka baaba'day wax walba ay ka baaba'een iyo weliba ayadii oo noloshii oo dhan laftirkeedii qof ay aaminta weyday oo iska rafaadsan labadoodiiba ay ka halowda shaqadii kaararkii wax walba ay isheli doonaan. waana qisada dhabta ee aadka dareenka u yeelatay ee xanuunka badan. intiini daawatay filimkii aan soo sheegay ee taxanaha ahaa waa ay daawatay. intiina aan daawanna waa qisadii buugaagta ugu badan la iibsaday. marka waxaan jeclaystay maadaama saxaabteeni bil Ramadaan oo aada lagu jiro isla markaasina ana asxaabtana aan ka dabageeyo marmarka qaar sheekooyinkan ama qisooyinkan gaaban ee aadka u xiisaha badan. qaar idin ka mid ah waxay jecel yihiin qisooyinka jacaylka qaar waxay jecel yihiin sheekooyinka waxyaabaha dhaca laftirkeena oo nii soo gudbinayna balse idinkana noqda kuwa mar walba nagu dhiirigeliya like-ta share-ta subscribe-ka gaarsiiya asxaabtooda kaleeto aan naga fogeyn. waa walaalkiin Ilka Case oo nile mar waliba waxaad ahaataan garabkiina annagana garabkeena aan isweeshano insha Allah channel-kana la kala kiciyo kulantin dambe oo xiiso leh.